Hello, welcome back asxaabta ku xiran channelkan Arizona. Haddii ay markaad kugu horeysaan ku soo biirta asxaabteena ku soo biirta, don't forget to subscribe, kambalaalka aad furato asxaabtaadan aad la wadaagto fiidiyoosheena. Waxaan maanta barnaamijkeena aan kaga hadli doonaa 9 kameero in ku noolnahay koonkan adduunka. 9 kameero oo qayb ku yahay dhulka aynu ku noolnahay. Si kooban ayaan maanta uga hadli doonaa. haddii aad fiidiyogan ka hesho, like saar, share garee, lana wadaag asxaabtaada. ugu horeyn si kooban haddaan ugu hadalno 9 kameero ee dunidani ka jirto. 9 kameero ayaa markaasi waxaa udub dhaxaad u ah dhammaantooda ama kulmisa qoraxda. Qoraxda waa saldhigga markaasi kulmisa meelayaasha. qoraxda ayaa ah markaasi saldhigga, waana halka ama halbowlaha meelayaasha ay ku wareegtaan, mid walba uuna ka qaato ilayska cadceedda ama kuleelka. qoraxda ayaa markaasi waxay ka weyn tahay dhammaan meelayaasha in lagu qiyaasay 12,000 oo jeer. meeraha markaasi ugu dhow qoraxda kana dhow meelayaasha kale ayaa ah meeraha lagu magacaabo markaasi mercury ayaa ah markaasi magaca kale ee loo yaqaano. mercury ayaa wuxuu u noqonayaa cudaarid ama Soomaalida ay u taqaano cudaarid ayaa ah markaasi meera aad u kulul, cidna aysan ku noolaan karin oogada sare dushiisa. macdanta xadiidka ah iyo birta laga helo meerahani lagu magacaabo mercury ayaa waxaa loo yaqaanaa nickel, iyo birta loo yaqaano silicate. meeraha labaad ee marka laga soo tago mercury ee qoraxda aad ugu dhow ayaa wuxuu noqonayaa Venus. haddaan si kooban uga hadalno meeraha Venus, waa meeraha labaad ee ugu dhow qoraxda. Venus ayaa magaca kale ee loo yaqaano Soomaalida ama luqadda Carabeed lagu yaqaan ayaa wuxuu noqonayaa kookaba Zuhra. Venus waa meeraha markaasi oogadiisa ama dushiisa sare markay qoraxda ku dhacdo dib isaga soo celsha. meerahan ayaa qoraxda aysan ka dusin, taasoo keenta in dusha ama oogada sare ee kookaba Zuhra ama Venus ay noqoto mid aad u kulul. meerahani ayaan lahayn guud ahaantiisa wax biyo ah, waana meero markaasi aad u qalalan. meeraha Venus ayaa ah meere ay markaasi qoraxdu ay kaga dhacdo ama qoraxda ay iska arkaan dhanka galbeed. meeraha saddexaad ee markaasi si kooban ugu hadli doono waa dhulkan ama dunida annaga aynu ku noolnahay loo yaqaano Earth. waa meeraha saddexaad taasoo ay ka jirto nolol baad iyo biyo intaba leh. nooca nolol ay ka jirta dhulka ayaa markaasi waxaa loo yaqaanaa ereyga laatiinka ama luqadda qalaad ayaa waxaasi loo yaqaanaa biosphere. hawada ka jirto dhulka ayaa ah mid boqolkiiba 21 ama 25 ay ku jirto oksijiin, taasoo suuragelinaysa noolaha ku nool xayawaanaadka iyo aadanaha inay ku noolaadaan. dhagaxaanta dhalaasha ee dhulka laga hela ayaa markaasi waxaa loo yaqaanaa larva, waana meeraha keliya ay markaasi ka soo baxaan ama ay ka soo butaacaan folkaanayaasha. meeraha afraad ee lagu magacaabo Mars, haddaan si kooban ugu hadalno asagana wuxuuna markaasi waa Mars ayaa magaca kale loo yaqaan, wuxuu noqonayaa Mariiq. waa meeraha afraad kaasoo ay u jirto qoraxda masaafo dhan 228 milyan oo kun, waxaana ku badan markaasi macdanta loo yaqaano iron oxide-ka. Mars ayaa ah markaasi meero qabooban. midabka ama ciidda sare ama dusha sare ee Mars ayaa markaa juqraafi ahaan loo fiiriyo waa meero markaasi casaan ah oogadiisa ama dushiisa sare. meeraha shanaad ayaa markaasi wuxuu noqonayaa Jupiter. magaca kale ee loo yaqaan ayaa wuxuu noqonayaa Mushtara. waa meeraha shanaad. haddaan si kooban uga hadalno meerahan astaamaha lagu yaqaano iyo waxa uu leeyahay ayaa markaasi waa meero markaasi meerayaasha markaasi ugu weyn 9 meero ee jirta. wuxuuna ka samaysan yahay isku dhis ama qaab dhismeed loo yaqaano hydrogen ama helium.
waana meeraha keliya ee markaasi leh 67 dayax. runtii waa meero markaasi aad u weyn, kana weyn meerayaasha kale. meeraha lixaad haddaan markaasi aan si kooban ugu hadalno, meeraha lixaad waxaa lagu magacaabaa Saturn. waa meeraha lixaad waa meeraha markaasi labaad ee ugu weyn marka laga soo tago Jupiter, waana meeraha ugu cufis jiidadka yar. intaasoo keliya ma ahe, waana meeraha haddana ugu dayax badan, kaasoo ka kooban 62 dayax. meeraha toddobaad ayaa markaasi waxaa lagu magacaabaa Uranus. waa meeraha toddobaad. haddaan si kooban ugu hadalna astaamihiis ayaa wuxuu uu leeyahay 27 dayax. Uranus ayaa qoraxda markaasi ka fog masaafo dhan 3 bilyan oo kun. cimilada markaasi Uranus ayaa markaas kuwa aad u quuban oo daran. haddaan u gudubno meeraha sideedaad, asagana waa meeraha lagu magacaabo Neptune. waa meeraha markaasi ugu fog qoraxda. midabka ama astaamaha meerahani lagu garan karaa ayaa ah dushiisa ama hawada sare mid markaasi bulug ah, ama calaamada buluga ay ku muuqanayso markaad juqraafiga aad fiiriso. meeraha sagaalaad oo inta badan la sheego inuusan ku jirin meerayaashii hore ee dadaalada saynisaanada ay ugu soo dareen, waa markaasi meeraha lagu magacaabo Pluto. astaamihiisa si kooban haddaan soo koobno, horta meerahani wuxuu leeyahay 5 dayax. Pluto ayaa markaasi wareega dhulka uu ka sameeyo ama dhulka inuu ku soo wareegto ayaa waxay ku qaadataa muddo dhan markaasi 27 maalmood iyo 7 saac iyo 48 daqiiqo ayay markaasi ku qaadataa. barnaamijkan waan maanta si kooban aan ugu hadlaynay meerayaasha 9 meera ee dunidani ka jirto, anagoo si kooban ugu hadlaynay. waanaga intaas. fadlan haddii aad ka heshay ra'yigaada ka dhiibo, lana wadaag asxaabtaada.